السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومالين كلا iyo barnaamij cusub maanta waxaan idin wadaa taleefanada iPhone-ka iyo security-dooda ama dadkoo dhan maanta waqtigan hadda la joogo inteena badan waxaan haysanaa iPhone marka haddii aad iPhone haysato waxa soo baxay si aad maaragtay aad uga taxadirto waxyaabaha kuugu jira si lagu save gareeyo waayo telefoonka wuxuu noo noqday boorso qof kasta boorsadiis ayuu noqday sawiraan noogu jira documents baa noogu jira wax walba oo aan haysano maanta telefoonka ay ku jiraan xataa bangigeena xataa telefoonka ku jira so security ahaan waxaa la keenay oo TV-ha laga sheegay in lagu badbaadin karo haddii telefoonka dhumo ama laga xado telefoonka hadda ayaamahan dambe waaba la iska dafaa adoo ku hadlayo jidka maraa laga dafi karaa uu ka dhumi karaa si kastoo noqon karaa marka newska TV-ha waxaa laga sheegay in lagu save gareyn karo oo maaragtay haddii aad maaragtay nambaradan aan kula maaragtay qaybsan doono ama aan ku sheegi doono haddaad gashato teleefankaaga waa lagu save gareyn karaa nambarada aad maaragtay teleefanka lagu save gareyn karo waxaa kamid ah nambaradan aan hadda soo saaray oo ah waa star #06# 12345 shantaas nambar ayaa gelinaysaa teleefanka inaa wacaysid oo kale meelaha maaragtay intaad teleefankaaga furto waxaad gelinaysaa nambaradan inta ku soo saaray ma aha kuwa hoose kuwa kore shanta number kaliya ayaad gelinaysaa marka waxa ku soo baxaya number ka bilowda IMEI numberkaas ku soo baxaya waxa la jiro nambaro kale hadda kuwan waa erayo nambaro ayaa la jiro marka waad sawiranaysaa emailka ku dirsanaysaa dadka UK degan I don't know inay arkeen TV-ha laga sheegay marka nambarada ku soo baxa ayaa sawiraad ka qaadaysaa marka emailkaaga u dirsanaysaa ma fahanteen ilaan teleefanka haddaa kusii haysid waxaa laga yaabaa teleefanka hadhow haddii lagaa xado lama arkayo soomahan lama helayo nambaradii email ku dirso emailkaaga ayuu safe kuuga ahaanaya marka nambaradaas ku soo baxaya hadhow haddii teleefankaa dhumo ama lagaa xado isla markii booliiska tagaysaa waxaa leedahay nambarkayga waa kaasa teleefankayga laga xaday ama iga dhumay isla markii teleefanka waa la wipe gareynaa markaas wixii kuuga jiro dhan waa la tirtirayaa wax lagaa xadaayo malaha bankigaaga lama xadi karo identificationkaaga lama xadi karo waxba lagaama xadi karo waa la tirtirayaa markaas teleefankana meesha block lagu saaraya qofkii xaday faa'iido uguma jirto marka wax uu ka faa'iidayo malaha laakiin haddii teleefankaaga lagaa xado oo maaragtay waxaa dadkii waxay heli karaan dadkan teleefanada dad furaa jira way furan karaan ama adoo ku hadlayo isagoo furanaa ku hadlaysaa lagaa dafay haddii lagaa dafo teleefankoo furan wax kasta isla markii ka baxsan karaan xataa lacagtay ka baxsan karaan wax kastay samaysan karaan waa fahanteeno marka haddii laakiin isla markii intaad cararto aad booliiska u geyso booliisku waxay awood u leeyihin inay kaa tirtiraan wixii informationkaaga aan la heli karin identificationkaaga la heli karin waxba la heli karin waa fahanteena umaleynaa marka saas samey shantaa number gasho numberka hoos ma aha numberka kore ka hoose waxaan usoo saaray inaad ogaataan waxa kusoo bixi doona waxa kusoo bixi doona waa IMEI ayaa u horeynaya laakiin number kale ku xigo number kale ayaa ku xigo marka adiga waxaa laga rabaa inaad geliso shanta number kore oo ah oo ah star #06# waa fahanteeno shantaas number aad gashanaysaa 12345 shantaas number markaa gashatid ayaa numberka hoose ku soo baxaya iyo nambaro kale nambaradaasay ka bilaadaan laakiin nambar kale ku xigo sawir ka qaado emailkaa ku dirso marka you are safe marka hal is safe gareeyo hala taxdiro insha Allah I hope inaad ka faa'iideen saaxiibadaada u dir dadka taqaanid iyo walaalaha iyo dadkoo dhan u dir halaga wada faa'iideysto inta fiirsatayna kule UK good morning ayaa laga sheegay so la socda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.